haddii arlada laga waayo wax cadaalad ah haddaba insaanku joogitaankiisa ma lahaanayo wax qiimo ah saaxiibkaaga dhabta ah waa midka kugula xisaabtamaya qaladyadaada ee ma ahan saaxiib midka kuu qurxiya qaladyadaada si uu kuu raali geliyo halkii daqiiqad uu xanuunku hayo waxay la mid tahay saacad halkii saacad aad macaansanayso shayna waxay kuula mid tahay daqiiqad haddaad se iibsato waxaadan u baahnayn waxaad iska iibisay waxaad u baahnayd aad ayay u sahlan tahay inay dadku ku ixtiraamaan balse aad ayay u adag tahay inaad adigu ixtiraamto nafsadaada ha ku noolaanin weligaa laba weji maxaa yeelay ugu dambayn waxaad dhimanaysaa adigoo weji la'aan ah taajirka wakhtigii uu doono ayuu cunaa cunnadiisa balse faqiirka wuxuu cunaa markii uu helo taasina waa farqiga u dhaxeeya taajirnimada iyo faqrinimada ha ka yeelin qalbigaada albaab furooyin badan leh oo aad loo ilaaliyo waxaa kugu filan oo ku dhowraya hal furo oo wanaagsan oo aad ku xirto dhammaan mugdiyada ahaaday caalamka hal shumac ma suurtagelayso inuu ifiyo qofkii dembi galaa isagoo qoslaya wuxuu naarta galaa isagoo oynaya kuwa ku jeesjeesa dhaawaca dadka kuwaasi ma garanayaan waxa uu yahay xanuunka mase jiro wax ka awood badan faraska indhahala